وأقل كعصب dalkeenu soddon waa hadda waxaan filayaa waa 60 jirsaday kolka aynu dhinac ka fiirino 30 sano aynu dawlo ahayn iyo 30 sano oo aynu kolba meel taagnayn oo hadda qiyaastii kolkaan fiiriyo dawladda hadda jirta intii ay dawladdii Soomaaliya burburtay waxaan filayaa inay tahay tii lixaad kolka intaas kolba 4 sano 3 sano ayay ku baxaysay intaana waxa jiraya intooda badan marka laga soo bilaabo tii imbagaati tii arta laga soo bilaabo doorasho ayay ku imanaysay oo taa madaxweynihii ayaa lagu soo doortay arta intii dambe si kastoo u dhacdo waxay ahayd madaxweynuhu ku bedelay oo ku soconay mudana madaxweyne codsiga aniga oo ku hadlaya magaca aqalka sare aan soo jeedinayaa waxa weeye dalkeenu badbaado u baahan yahay inuu badbaadana wuxuu u baahan yahay wada hadal iyo wada tashi aan wada hadalno waa aan heshiino maxay markaa u baahan tahay waxa weeye cid kasta oo kolka siyaasaddan dalkan maanta jira shaqo ku leh inta laysu wada yimaado in la tashado tala waa nabad waana nolol waa waxay u baahan tahay in la tashado oo laysu tanaasul la sameeyo wax laysu quudho laysu ogolaado fikirka iyo talada la kala qaato oo ay noqonayso yani kolka wax laysu quudho tanaasul laysu sameeyo run laysu sheego sharcigana lagu dhaqmo waa furaha nabadda heshiiska iyo nabadda weeye intaynu u baahannahay intaas weeye waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay adiga iyo madaxweyne dani maanta inaad halkan joogtaan madaxweynihii Soomaaliya aad la joogtaan waxaan se idin leeyahay waxay u baahan tahay inta kale ee siyaasadda shaqada kulihina inaad u yeertaan oo si wada jira go'aan dalkan lagu badbaadinayo loo gaaro hal mar baan anigu isleeyahay Soomaali shirarkii badnaa ee loo qabanayay way ku heshiisay waxaan ka xumahay heshiiskaasi wuxuu ka dhacay Addis Ababa 1993 bishii Maarso Soomaali way ku heshiisay waxay ku heshiisay waxaan hadda aan ammaan u soo jeedinayaa Ali Mahdi Maxamed oo madaxweyne waqtiga ahaa oo shirka kolkii la tagay miiska dhigay madaxweynenimadii waxaan kale amaanayaa waxa jiray hadda dalkan siyaasadii la soo maray USC ayaa qaybsantay oo laba noqotay oo mid waxay la baxday USC SNA midna waxay la baxday USC SSA 15 urur beeleed oo siyaasiyiin oo Soomaaliya ayaa labada u kala dhaqaaqay oo waxay noqdeen 30 iyagoo abaal la tagay shirka Addis Ababa heshiiska la gaaray oo aad u qiimeynaya waxa weeye 30kii urur beeleed 15kii bay ku noqdeen hal bay noqdeen 15 urur bay noqdeen
shirkaa waa lagu heshiiyey si kooban haddaan u sheego qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa TNC in la sameeyo oo ka kooban 74 xubnood 18 goboloo min saddexa oo qof dumar tahay waa 54 iyo 15 urur oo min xubin ahaa waa 69 iyo magaalo madaxda xamar oo 5 xubnood oo dheeriya la siiyey 74 taasu ka koobnaa waxaa kale lagu heshiiyey in la sameeyo charter oo yaa samaynaya waxaa la yidhi 15 urur oo min 2 xubnood keena waa xubin siyaasi rugcada ah iyo xubin sharci yaqaana waa 30 iyo hal khabiir oo United Nationska ah oo sharci yaqaana 31 in la sameeyo laba guddina waa la sameeyey oo qaran guddi gobolladoo dhan taga oo sheega in la heshiiyey xabad joojin guud iyo wadajir lagu heshiiyey ka dhaadhiciya iyo mid loo diro Somaliland oo la yidhaahdo maxaa tabanaysaan miiska soo saar dalkani shirkaas uu ku heshiiyey waxaan ka xumahay kabunga nin la odhan jiray oo United Nationska xafiiska siyaasadda joogay iyo Jonathan Howe oo Maraykan ahaa oo UNISOM 2 madax ka ahaa inay fashiliyeen oo weliba uu kabunga ahaa ninka fashiliyey guddi siyaasadeed oo Addis Ababa waaga howlaha waday ayuu u yeeray oo hoteelkan la yidhaaho Lafayooyinka isagu imaad waan ku jiray wuxuu yidhi waxaad samaynaysaan charterkii sidaan ku samaynaynaa charterku sow maaha kii inta TNC da la dhigo guddi 31 xubnood oo sidaa ku imanaya loodi wuxuu yidhi maya waad samaynaysaan aniga iyo kolley nin Cabdullaahi la odhan jiray waa ka baxnay halkaasay ka bilaabantay khilaafkii caydiid iyo United Nations marka shirkaasi isagoon hirgelin buu burburay waxaa burburiyey kabunga wuxuu ahaa gaanu ka socday mudane madaxweyne waxaan leeyahay dadka Soomaalidu waa dad colaadi kama dhaxayso waa walaalo laakiin waxaad moodaa inaga siyaasiyiinta ayaad moodaa inaynu kala dhaqaajinayno waxaan leeyahay maanta xamar oo joogtaan ha ka tegina ilaa xalkii Soomaaliya aad si wada jira guud ahaanteen aan uga gaarno